بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Asad Khaliif Jaamac waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada degmada Kalkacyo hadda ku sugan magaalada Kalkacyo aan dhawahay barnaamijka aan ku dhawahay waxaan aad ugu faraxsanahay galabtan qayb ka qaato barnaamijkan xiisaha badan anigu waxaan ahaa shakhsiyaadka aadka ugu xiran barnaamijkan garasho wadaag kulamadiisana ka qayb galay dadka markastana social media kala socdo barnaamijkaas garasho wadaag xaqiiqatan dhammaan dadka Kalkacyo gobolka Mudug aad bay ugu xiran yihiin waa barnaamij wax badan ay ka faa'iideysteen looga hadlo nabadda iyo maaragtay deegaanka mar walbana dad waxgal ah ay ka soo qayb galaan oo ururada matala waa barnaamij ay dadweynuhu aad ugu xiran yihiin oo inta badan xataa barnaamijka inta lagu guda jiro ay uga qayb qaataan qadka taleefanka ayagoo dadka su'aalo weydiinaya marka barnaamij hirgalay oo aad u wanaagsan oo deegaanka in loo soo celceliyo aad u muhiim tahay waaye dadka bulshadana ay aad ugu qanacsan yihiin aad u mahadsantahay Bruno horta anaga ka dhalinyar ahaan dadka nabadda ka shaqeeyanahay mararka qaar markaan tagno oo deegaanada Galmudug meelo kamid ah tagno oo si colaadaha inay deegaan uga qayb qaadano way jiraan dad oo reemi ah oo tuulooyinka Galmudug qayb kamid ah degan oo barnaamijyada aad ugu xiran xataa waxa jira oday kamid ah deegaanada Galmudug oday jooga oo barnaamijkaasi maalin aan tagnay meesha nabada u tagnay nala wadaagay inuu barnaamijkaasi barnaamij maarta tayo badan oo mar walbana ku xiraya taxana uu yahay dhageysigiisa isbedelna uu ku keen sababtoo ah mar walba garasho wadaag dadka casuumayso waa dadka bulshada wax ka dhaadhicin karo dadka lagu xiran mar walba lagu casuumaa marka taas waxay keenaysaa in qofka isbedel ku yimaado qaybna wuxuu ka qaatay xoojinta nabadda iyo in dadka walaalaha ah mar walba kuwada deganaadaan deganaansho iyo nabad marka barnaamijkaasi miyiga dhammaan Galmudug oo dhan si fiican u saameeyay dadkuna qulubtooda iyo maskaxdooda degay aad bay ugu mahadsan aad u mahadsan tahay horta garasho wadaag barnaamijkaas xilliga la sameeyay iyo gobolka xaaladda ka jirta waxaan dhihi karaa inay xilliyo isku baahnay ahaayeen dadkuna fariimaha nabadda in loo marsiyo meediyaha waxyaabaha waxa weeye qayb ka qaadan kara xasiloonida iyo deganaanshaha deegaanka dadka marka aad bay macnaha barnaamijkaas ugu baahnaayeen dadka khibrada oo ka hadlayna dadkii loogu talagalay inay nabadda faafiyaan waay aniga waa ka qayb galay barnaamijka aan ka qayb galay barnaamij waxa ugu soo aad environmentiga deegaanka ah oo dadka ay dhibaato ku haysay bacaha iyo deegaanka in qofka qashinka iyo waxyaabo iskaga daadiyo xaqiiqatan ka qayb galkay bulshada xataa way ugu mahadcelin sababtoo ah experience-gayga aan ku wadaagay in dadka aan u gubay fariin qurxoon marka waa la mahdiyay barnaamijkaas